بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناسين داوديال meel kasta ku sugantihiin waa mar kale iyo kulankeeni iyo barnaamijkeeni qisiyo qosol barnaamijka qisiyo qosol baan daawadayaal waxaan ku soo qaadanaa kaftan erey bixin iyo sheekooyin kala duwan iyo dhacdooyin aan idinku soo gudbino si aad ugu nasataan waqtina ku qaadataan xilliga lagu jiro bisha Ramadaan ku afur oo ku naso barnaamijka qisiyo qosol si aad nasasho u hesho waqtigaaga kagana rayso muranka iyo daalkii maalintii daalka faraha badnaa ee maalinimo برنامج قصير قصل داو ضيال وأنا ديسو أنا يعود ديسو تبين شرني عاوة وأنا عبد الرحمن عاوة يلعبوا دارتي إن قعدوا دارتي عاوة درتين لكن في دبي إن شاء الله تعالى وحرجينا ويصير حناها يدكسو صعدوا برنامج كي وصيتوا صوب حناتان عاوة وحنا ساق عن طنا شيكوين أي برنامج كان قيب كم إذا نقدر إن شاء الله تعالى شيكوين كان الشركة وهو رئيسنا والشركة صوصعتها نبى داو ضيال waxuu damcay inuu gabadh mehersado marka wuxuu yeelay sheekhu meherin lahaa marka sheekhu gabadhii meheriyay ayaa waxa uu siiyay $10 markaas ayaa sheekhi wuxuu damcay inuu lacagta u kordhiyo tan wuxuu war ma gabadh qurux badan badaysan $10 lagu meheriyo bal gabadha sawirkeeda soo tibiyo inay u qaadato $10 iyo in kala dhigaya markaas baa ninkii sawirkii u diray sheekhi sheekhu waxa gabadh inaan aad u qurux badnayn $5 buu celiyay wuxuu xaaraanta ma cuno sheekadana waxa xaaraanta ma cuno شيخنا ساسوني كيشون دورو عليه باقي كدي مركر كيناني وحوغا هيغا مقدير aanay hayn sheekadan waxa la raahdaa anigu xaraanta ma cuno taawadayaal barnaamijkeenu waa barnaamij la xiriira sheekooyinka inta badan aan ku soo gudbino iyo erey bixin caawna san ku balanay waxa aan ku soo gudbinaynaa sheekooyin anoo kaliya sheekada labaad waa sheeko nin ayaa daawadayaal wuxuu qabay laba dumar ah kadib laba dumar ah waxay isku qabsadeen mid walba aniga ayuu hebel jecel yahay iyo aniga ayuu hebel jecel yahay taas bay damceen inay ku kala baxaan maxkamadda oo ah ninkii qabay markaas ayay ninkii soo yimaadeen waxaanay ka codsadeen inay kala saaro oo jecel yahay u sheego taasina ninkii waxay ku noqotay laba daran mid dooro balse daawadayaal ninku waxa ninka saaxiibul aqli ah isla markaana aqli u saaxiiba waxaana uu ku yiri gabadh kasta oo jecelahay aniga ayaa caawa cadeynay toro muxuu ku cadeeyay sidee buu ku cadeeyay mid walbana waxay ku noqotay raali sidii ugu xadeeyay wuxuu sameeyay wuxuu yiri labadiinba kaalahan fadhiista isku qabtay indhaha kadib indhaha isku qabteen labadiiba wuxuu taan jecel dhabarka ayaan taabanaya balse tan dhabarka taabta ilaa iyo gurigeedii ha cararto kadib mid walba dhabarka ayuu taabtay labadiiba mid walba gaarkeedii ayuu carartay iyadoo ku faraxsan inuu yeeri jecel yahay saasay labadii dumar ku wada qanceen oo ay ku noqdeen dumar ku qanacsan inay labada dumar u jecel yahay daawadayaal wali barnaamijkeena dhexdeena kaga jirnaa waana barnaamijkeena sheekooyinka aynu ku soo qaadan jirnay qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena wali farikama qodna faanoole sheekadan saddexaad ee barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa waxa dhacday islaan ayaa waxay aragtay dadkii oo wada yaacay marka badanaa waxa dhacday dadku isfahan waa dhaco ama dadka qof si hadal u yiraahdo qofna si uu qaato marka saanta aragtay dadkii oo dhammaan wada yaacay ayaa waxa ay weydiisay iyadoo ordi kari weyday waxay weydiisay wiil dhalinyaro ah ayaa waxa ay weydiisay maxaa lagu yaacay markaas ayuu wiilkii wuxuu yiri waxa lagu yaacay cagihii way yaabtay haddana waxay tiri oo maxaa lala qaylinaya waayahay waxa uu jawaabay waxa lagu qaylinayaa afkii islaanta way yaabtay waxay tiri warninku af adaga wuxuu xaqad ka horta afrikaanteeda miyaan ku dhuftay taasna waxay sheeko isfahan waaga bulsho ninba si yiri nina si u qaaday daawada barnaamijkeena qisiyo qosol wuxuu taagan yahay soo gudbinta sheekooyinka iyo dhacdooyinka kala duwan oo toddobaadkiiba hal mar halkan idinku soo tibin doono sheekada ugu dambeysay ee barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono oo Xasan Sheekh Ismaan Nuur Allahu naxariisto nin reer Burcaha ayuu ahaa waxaan ku soo qaadan doonaa sheeko kamid ah sheekooyinkiisa iyo kacaanka dhex maray markaas Sheekh Ismaan wuxuu nabcaa kacaanka oo Xasan Sheekh Ismaan Nuur ee qiyaas ku halaysan lahaa markaas ayuu wuxuu nabcaa kacaanka maalmaha kamid ah waxaan isagoo fadhiya daawadayaal dukaan ku lahaa magaalada Burco oo ay niman saraakiil fadhiyaan ayaa waxa soo galay heestii kacaanka oo ay qaadayaan dawladda tan barakaysan markaas baa Xasan Bakhtiir rekoorkii saraakiisha ayaa waxa weydiiyaan Xasan ma waxtay kacaandiid maxaad u bakhtiisay markaa isoo gashay heesta kacaan Allahu naxariisto Xasan wuxuu ku jawaabay eesh qiyaasak ma murmur soo gaar rekoorkii ugu yar yahay waxay ku soo galeen burin ka badan 10 qof marka wax ka cabsay rekoorkii ka jabo daawadayaal barnaamijkeena sheekooyinka qisiyo qosol toddobaadkan intaas ayuu ku eegyahay tan inta barnaamij kan la mid ku kulmi doono dhamaantii hadiyadina assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa duubistii
cabdiraxmaan tiriike iyo ayaala jaamac waa soo tibinta cabdiraxmaan xasan iyo ayatiin channel iyo bahda TM Studio leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.